Madasha Afrika ee dhisidda awoodda dhalinyarada iyo qiimayaasha wadajirka ah ayaa si rasmi ah uga bilaabmay caasimadda dalka. Madashan oo socon doonta muddo 4 maalmood oo xiriir ah. Danjire Lemlem Fisaha ayaa sheegtay in caasimaddu ay tahay xarunta ay Afrikaanku ku wadaagaan isla markaana ay ku kulmaan iyaga oo la falgalaya dhaqanka iyo qiimaha soo dhaweynta ee ay caanka ku tahay Itoobiya. Waxa ay xustay in qabashada madal ay dhalinyarada Afrika hal meel isugu yimaadaan kuna wada tashadaan dhismaha awooddooda ay door muhiim ah ka qaadan karto qaabaynta mustaqbalka qaaradda iyo in loo horseedo marxalad wanaagsan. Waxa ay sidoo kale sheegtay in Itoobiya ay abuureyso jawi xooggan oo saldhig u noqonaya guusha ajandaha Afrika 2063 iyadoo kor u qaadaysa ka faa'iidaysiga dhammayska tiran iyo ka qaybgalka dhalinyarada. Waxa ay sidoo kale ku boorisay dhalinyarada qaaradda inay si wanaagsan uga faa'iidaystaan fursadaha loo siinayo go'aan qaadashada iyo xilalka hogaamineed isla markaana ay si firfircoon uga qayb qaataan go'aaminta mustaqbalka. Agenda 2063 it says human capital is the most precious asset the African continent has. It's not land. Sida uu tilmaamayo ajandaha 2063, hantida ugu qaalisan ee qaaradda Afrika waa kheyraadkeena aadanaha. Kheyraadkani ma aha dhul, biyo, macdano muhiim ah ama shidaal, balse waa dadkeeda. Sidaasi darteed, Afrika waxay mustaqbalkeeda horumarineed iyo barwaaqadeeda maanta labadaba ku tiirsan tahay qaybteeda dhalinyarada ah. Si kastaba ha ahaatee, si awoodda weyn loo xaqiijiyo, waxaa lagama maarmaan ah in la abuuro fursado macno leh oo u saamaxaya dhalinyarada Afrika inay ka qayb qaataan jagooyinka awoodda iyo go'aan qaadashada, kuwaas oo ka jira hay'adaha dowladda iyo qaybaha gaarka loo leeyahay. Dhankiisa, wakiilka guddoomiyaha Midowga Afrika u qaabilsan arrimaha siyaasadda, nabadda iyo amniga, Danjire Bankole Adeoye, ayaa sheegay in dhalinyarada laga filayo inay qaataan door hogaamineed oo lagu xaqiijinayo nabadda, amniga iyo horumarka Afrika. Waxa uu sheegay in Midowga Afrika uu si go'aan leh ula shaqeynayo dalalka xubnaha ka ah siyaasiyiinta iyo bahwadaagta horumarinta si loo xaqiijiyo ka qaybgalka dhalinyarada Afrika ee go'aan qaadashada iyo inay helaan fursado dhammaystiran oo ay kaga faa'iidaystaan horumarka. Waxa uu carabka ku adkeeyay in ka qaybgalka dhalinyaradu u baahan tahay hannaan joogto ah oo ku saleysan wada hadal, ka qaybgal iyo dabagal. The Africa we want and the Africa we deserve needs us all to work together collectively to build it and to enhance it, to strengthen it, and also to make it. Tababarkani waxa uu si weyn idinka caawinayaa inaad ballaadhisaan aqoontiina iyo fahamkiina ku saabsan si aad si joogto uga qayb qaadan kartaan maamulka iyo geedi socodka dimuqraadiyadda, si aad xuquuqda u ilaalisaan oo si mas'uuliyada aad uga soo baxdaan, iyo weliba sida khilaafaadka loogu maareyn karo wada hadal halkii loo adeegsan lahaa kala qaybin ama rabshad. Sidoo kale, safiirka Burundi ee Midowga Afrika ayaa sheegay in dhalinyaradu yihiin hogaamiyayaasha maanta iyo kuwa mustaqbalka ee go'aamin doona jihada Afrika. Waxa uu sheegay in Afrika ay u baahan tahay xirfadaha hogaamineed iyo aqoonta dhalinyaradeeda, isla markaana ay tahay inay si go'aan leh uga shaqeeyaan dhismaha Afrika ee ku dhisan nabad waarta iyo mabaadi'da dimuqraadiyadda. This training will greatly contribute to expand your knowledge and understanding on how to constructively engage. Dhalinyarada Afrika markaan leenahay waxaad tihiin hogaamiyayaasha berri, haddana isla waqtigaas ma dhihi karno berri suga. Afrika waxay maanta u baahan tahay hoggaan cusub.